kamid ah mulxidiinta ayaa kula sharatay culimadii muslimiinta ahaa ee tuuladiisa ku noolaa inay la doodaan haday wax isla hayaan waxaanay doorteen culimadii koodii ugu caqliga badnaa si uu la doodo ninkan iyagoo isugu ballamiyay meel fagaare ah oo dadka tuulada oo dhammi isugu yimaadaan waqtigii baa la gaadhay mulxidkii shacabkiina way yimaadeen laakiin sheekhi muslimka ahaa ayaa soo raagay markaasuu mulxidkii ku yidhi bulshadii uu baqday caalimkiinii waayo waxa uu ogaaday inaan ka badin doono waxaana uu idin caddeeyay inaanu koonkani lahayn wax ilaah ah intii uu hadlayeyna waxaa soo galay goobtii caalimkii muslimka ahaa waanu ka cudur daartay habsankiisii isagoo leh markaan soo socday waxaan waayay doonaan kaga tallaabo webiga waxaana isaga sugayay xeeliga sidaan u taagnaana waxaa sikadiisa u soo baxay looxaan waana is urursadeen oo way dhismeen waxaana noqdeen doon kadibna way ii soo dhowaadeen si aan u fuulo waana soo fuulay oo sidaasaan ku yimid mulxidkii ayaa yidhi ninkani wuu waalan yahayba siday looxaan isku urursan karaan oo ay doon iskood iskaga noqon karaan caalimkii ayaa dhoola caddeeyey waxaanuu yidhi haddii ay doontu u baahan tahay cid samaysa oo aanay keligeed iska samaysmi karin sidee ayuu koonku bilaa ilaah u noqon karaa oo uu iskaga samaysmi karaa haddii aad daawada